waxaa kaloo uu akhriyi jiray ragcadda koowaad qul yaa ayuha alkaafiruun ayuu akhriyi jiray. sidoo kale ragcadda labaadna wuxuu akhriyi jiray faatixada kadib qul huwa allahu axad ama suurat likhlaas ayuu akhriyi jiray, waana xadiis ku soo arooray fi saxiixi muslim. sidoo kale walaalayaal suuraddan fadligeeda waxaa ka mid ah inuu rasuulka ilaahay akhriyi jiray labada ragcadood ee ka horeeya salaada fajriga ama salaada subax ka horeeya. labadii ragcadood ee ka khayrka badnaa adduunyada oo dhan, labadaa ragcadood nebigu wuxuu markuu faatixada u akhriyay ragcadda koowaadna uu akhriyi jiray qul yaa ayuha alkaafiruun ama suurat lkaafiruun ayuu akhriyi jiray. ragcadda labaadna qul huwa allahu axad ama suurat likhlaas ayuu akhriyi jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam. xadiidkana waxaa soo warinaya ibnu cumar radi allahu canhuma oo wuxuu leeyahay muddo bil ah ayaa nebiga aada u fiirsanayay, waxaana ii caddaatay inuu suuradda qul yaa ayuha alkaafiruun uu ku furfuranayo ragcadda koowaad ee labada ragcadood ka horeeya salaada markaa subaxa, ka dambena uu akhrinayo markaa qul huwa allahu axad. waxaa kaloo ka mid ah fadligeeda suuraddan waxaa la akhriyaa ama waxay ka mid tahay qur-aanka la akhriyo marka qofka muslimka uu seexanaya habeenkii. oo saxaabigii la dhihi jiray jabal ibnu xaarith oo ay walaalo ahaayeen saxaabigii zayd ibnu xaaritha radi allahu canhu, ayaa rasuulka ilaahay baa wuxuu ku dhahay jabalow markaad seexanaysid waxaad akhridaa qul yaa ayuha alkaafiruun akhriso oo suuraddaa dhammayso buu yidhi. maxaa yeelay suuraddaasi waxaad beri ka noqonaysaa gaalnimada iyo kufrigaad beri ka noqonaysaa ee sidaa uu ku seexo oo akhriso. sidaa awadeed suuraddan waxay ka mid tahay ducooyinka iyo adkaarta iyo quraa'aadka la akhristo markaa yacni qofkii intaanu seexanin ka hor weeyaan. suuraddan walaalayaal suurat lkaafiruun waxay ku bilaabmaysaa bisinkii bismi illaahi araxmaan araxiim, bimacnaa ay abda-u biismi illaah, waxaan ku bilaabayaa ama ay ku bilaabantahay magacii ilaahay allahaas oo sifooyinkan iskale arraxmaani oo ah allaha raxmaanka ah naxariista guud leh, arraxiim allahaasoo naxariista gaarka ama khaaskaana iskale. qul waxaad dhahdaa rasuulka ilaahayow yaa ayuha alkaafiruun gaalooy, waar nimankiinan gaalada ahay, waar gaalooy sidaa dhaha bali. qul waynu garanaynaa qul waa soo marnay dhowr jeer in ficil amar ay tahay oo wax la farayo rasuulka ilaahi calayhi salaatu wasalaam. yaa ayuha waxbaa lala hadlaya, yaa markaad maqashid waa waxbaa loo yeedhayaa, waa dhawaaq luuqadda afka carabida marka wax loo yeedhaya ayaa la adeegsadaa. markaa wuxuu lala hadlayaa cid baa lala hadlaya. yaa ayuha kuwiinaasa lala hadlaya, war kuwiinaa lala hadlayo alkaafiruuna ee gaalada ahi, alkaafiruuna ee gaalada ah. kaafiruuntu waa maxay? kaafiruuntu waa yacni kelmadda kafara luuqa ahaan luuqadda afka carabida dhowr macnay leedahay, laakiin istilaaxan sida yacni mustalaxa ah ee lagu ereybixinta caadiga waxay weeye macnaheedu waa wixii qofkii ka gaalooba walciyaadu billah diinta islaamka ama ilaahay rasuulkiisa ka gaalooba ayaa kaafir la dhahan. siduu ilaahay u dhahay subxaana wa tacaala waladii khalaqakum faminkum kaafirun wa minkum muumin, ilaahay waa kii idin abuuray waxaana idinka mid ah ku kaafir ah iyo mid kaa mid mu'min oo ilaahay rasuulkiisii markaa rumaysan iyo mid ilaahay rasuulkiisa aan rumaysnayn ayaa idinka mid ah. marka kaafir macnaheedu waa qofkii aan ilaahay rasuulkiisa rumaysnayn ayaa la dhahaa kaafir, noocu doonaba ha noqdo, marka noocu doonaba ha noqdo kaafirkaasi. marka qul yaa ayuha alkaafiruuna, waar nimankiinan ama ciddiinan gaalowdayo, cid gaara kuma socoto. khitaabku wuxuu ku soconayaa cid kastoo gaala, ama ha noqdaan mushrikiintii carbeed ee xilligaa noolay ama gaalada iminka diinta islaamka aan haysanin oo dhan, noocay doonaan ha noqdaan noocyadooda kala duwan oo dhan ayay ku socotaa suuraddani. waxaan ujeedaa marka waxa weeye waxaa soo gudagelaya wax alaaliya wixii aan haysanin diinta islaamka oo dhan ayaa kufriga soo hoosgelaya, hadduu ilxaad yahay, hadduu calmaani yahay, haddii uu yahay subxaan allah nasraani ama yahuudi ama buurish ama hinduus ama zaroshar ama majuusi, wuxuu doonaba ha noqdo wixii diinta ilaahay aan haysanin ee islaamka ayaa lala hadlaya. yaa ayuha alkaafiruuna kuwa gaaloobayo, laa acbudu ma caabudaayo maa tacbuduuna waxaad caabudaysaan, anigu ma caabudayo waxaad caabudaysaan oo ah sanamyadii iyo ilaahyadii baatilka ahaa ma caabudayo. sidaa dhe baa la dhahay rasuulka alle sala allahu calayh wasalam. walaa antum idinkuna ma samaynaysaan caabiduuna maa acbud, macnaha idinkuna ma caabudaysaan maa acbudu waxaan anigu caabudo oo ah ilaaha xaqa ah ee rabbigayga ah eena caabudayo, idinkuna ma caabudaysaan.
oo ma caabudaan. waayahay walaa ana caabidun maa cabadtum, walaa ana aniguna ma yihi caabidun mid caabudi doona, yacni mid caabudi doona ama caabudaya maxay maa cabadtum waxaad caabudeen, waxaa caabudeen ma caabudi doono mustaqbalka, ma caabudi doono, igama suurtoobaysa sidaas dha baa leedhahay rasuulkii alle. walaa antum idinkuna sidoo kale ma tihidin caabiduuna kuwa caabudi doona maa acbudu waxaan anigu caabudayo oo ah ilaahay xaqa ahaa ma caabudi doontaan. afartaa aayadood ee aad moodid inay soo noqnoqonayso, culammada qaar way isku khilaafeen macnaheedii. qolo waxay tidhi labada aayadood ee hore iyo labada aayadood dambe waa isku macno weeyaanoo waa tikraar, way soo noqdeen oo waa lasii akidayaayo, yacni waa lasii adkaynayaa wixii ay markii hore ka warrantay labadii aayadood ee hore ayay labadan aayadood dambena sii adkaynayaan. markaa way soo noqnoqdeen. fasirkaa waa jira oo sida ay usoo noqnoqotay aayado badan oo qur-aanka ka mid a, sida suurat raxmaan waxaa kusoo noqnoqday fabiayi aalaa'i rabbikumaa tukadibaan ama faweylu lilmukadibiin. aayadahaasi way soo noqnoqdeen. suuratu mutafifuun, yacni aayadahaasi way soo noqnoqdeen, waxayna usoo noqnoqdeen yacni akidaad ama in lasii adkeeyo ayay usoo noqdeen. sidaasoo kale ayaa culimmada qaar markay fasirayeen waxay dhaheen waa tikraaro, waana lasii akidayaa oo waa lasii adkaynayaa. marka culimo kale waxay dhaheen maya, labada aayadood ee hore waxay ka warramaysaa wax iminka taagan, yacni fal iminka taagan ayay ka warramaysaa oo waxaa la leeyahay nebigii allah wuxuu dhahayaa anigu ma caabudayo iminka waxaad caabudaysaan, idinkuna iminka ma caabudaysaan waxaan caabudo. labada dambena waxa weeye waa mustaqbalko, waxa weeye anigu ma caabudi doono waxaad caabudaan, idinkuna ma caabudaysaan ama ma caabudi doontaan waxaan caabudo. qolana sidaas ayay ku fasirta. qolo kalena waxay ku fasirta culummada ka mid ahi waxay dhaheen labada aayadood ee hore waxaa laga hadlayaa falka ama ficilka, yacni falkan aad la timaadeen ee cibaadadii markaa wathaniyada ee diinta yacni gaalnimada ah, falkaa lama imanayo anigu, idinkuna falkan anigu la yimaado iyo camalkaan la yimaado ee lama imanaysaan. labada aayadood sidaasa culimmada qaar ay ku fasireen ee hore. labada dambena waxay ku fasireen culimmadaasi walaa ana caabidu maa cabadtum iyo walaa antum caabiduuna maa acbud, waxay ku fasireen oo dhaheen waxa wey looga jeedaa alqubuul ayaa looga jeeda. qubuulkuna waa yacni falka lamaydaan imanin, waayahay aniguna falka noocaasa lama imanin, sidoo kalena idinkama aqbalayo falka aad la timaadeen, idinkuna igama aqbalaysaan ama igamaydaan aqbalin falkan aan la imi iyo sharciga igamaydaan aqbalin. sidaana culimmada qaar ayaa ku fasiray. marka waa qowlal kala duwan weeye, mid walbana sidii dhankeeda markaad ka fiirisid waa mid saxa wey. laakiin sidai aniga ila xooga badan waxa weeye in labada aayadood hore ay ka warramayaan wax iminka taagan, labada dambena ay ka warramayaan wax mustaqbalka markaa ka hadlaya. marka waxaynu ku fasiraynaa oon dhahaynaa laa acbudu ma caabudayo iminka maa tacbuduuna waxaad caabudaysaan idinku iminka ma caabudayo, waa kow. walaa antum caabiduuna maa acbud, idinkuna ma caabudaysaan iminka maa acbudu waxaan anigu caabudo. gaaladii ayaa lala hadlay, waxaa la leeyahay idinkuna ma caabudaysaan iminka waxaan anigu caabudo. waaya labadii aayadood ee hore waa iminkay ka hadlayaan wax iminka taagan. walaa ana caabidu maa cabadtum waa mustaqbalkay ka warramaysaa ee macnaheedu waxa weeye walaa ana caabidun aniguna ma caabudi doono maa cabadtum waxa caabudaysaan, anigu ma caabudi doono mustaqbalka waxa caabudaysaan. waayahay walaa antum caabiduuna maa acbud, aniguna idinkuna ma caabudi doontaan waxaan anigu caabudo oo ah ilaaha xaqa ah ma caabudi doontaan mustaqbalka. allahu akbar. oo waxaa la leeyahay culummadu yacni aayaddaa dambe ee ka warramaysa mustaqbalka waxay kusoo degtay rag cayiman oo ilaahay uu ogaa inaanay weligood islaamayn, weligood islaamayn oo gaalnimo ay ku dhimanayaan, sida abujahal iyo cuqba ibnu maciid iyo cutba iyo shayba iyo waliid iyo raggii umaya ibnu khalaf iyo gaaladii waaweynaa. raggaasee markaa gaalnimada ku dhintay allana wuu ogaa, qeybkiisa wuu ka ogaa, ayaa markaa ay kusoo degto ay ka warramaysa oo laleeyahy kuwaasi xitaa mustaqbalka yacni gaalnimo ay ku dhimanayaan mana islaamayaan. aayadda u dambaysa 6aad ilaahay wuxuu dhahay lakum diinukum waliya diin. lakum idinku waa gaaladiiba lala hadlaya, diinukum diintiinaa leedihidiin, waliya aniguna waxaan leeyahay diini
yacni ana diintaydan leeyahay idinkuna diintiina ana tayda diintu waa maxay diintu yani waxa weeye waa qofkaasi waa diin ayuu leeyahy horta kelmadda diin macnaheedu waa xisaab kelmadda diin waa xisaab maliki yawmi ddiin suurat lfaatixa waa kusoo maray waa maalinta xisaabta weeyaan marka diin macnaheedu waa xisaab way noqon karaysaa diin xisaabna way noqon karaysaa marka aayaddan markuu alla leeyahy lakum diinukum diintiinaa leedihidiin weliya diin ana diintaydaan leeyahay macnaheedu ma aha in gaaladii looga raali noqday diimahoodii raalli looga noqday ee meeshu waaba tahdiid waaba cagajuglayn waxa weeye waa digis ilaahay uu u digayo weeyaan subxaan allah marka ha ku kadsoomin halkan waa loo digayaa gaaladii waxaa la leeyahay maalin aakhira idinka dambaysa iyo diintiiyo maalinta xisaabta idinka dambaysa bal iska caabuda idinku waxaa caabudaysaan maalin baa idinka dambayse markaa raalli loogama aha waxaan ay caabudayaan ama diin waxay ka dhiganayaan raalli loogama aha ee waxa weeye waa tahdiid oo waa loo digayaa oo waa loo cagajuglaynayaa oo ilaahay baa wuxuu leeyahay maalintii yowmuddiin baa idinka dambaysa waa siduu nabigeenu lahaa calayhi salaatu wasalaam idaa lam tastaxyi fasnac maa shi'ta buu dhaha rasuulku calayhi salaatu wasalaam haddaadan xishoonayn waxaad doontid yeel bal ka waran haddaan dhahoanu maba xishoonayaba ama qof uu dhahoanu maba xishoonayaba oo waxaan doonaan yeelaya ma raalli baa looga yahay maya ee ficilkani waa qowlka noocaasi waa qowlu tahdiid waa hadal lagugu digaayo iska jir baa lagu leeyahy laguma ogola inaad wax kastoo laga xishooda aad la timaadid maya ee waxa weeye haddaad la timaadid baa looga jeedaa maalintii qiyaamaha kaa dambaysiya maalin lagaala xisaabtamaayo waaye waxaa kaloo baraarujin mudan walaalayaal xilli maa la dhahayaa lakum diinukum waliya diin gaalka goormaad ku dhahaysaa diintiinaad idinku leedihin ana diintaydan leeyahay ma mar walba ma markaad wada kulantaanba mise waa markaad diinta ilaahay usoo bandhigtid waa marka diinta ilaahay loo bandhigo weeyaan ee yaboha islaamka loogu yeedho ee diinta loogu yeedho oo qofkaasi markaa uu diido ee uu ku adkaysta diintiisa ee uu ka gaaloobo ee uu beeniyo diinta islaamka ee la gaadhsiiyey markaa waa la dhihi karaya qur-aankuna wuu isdhammaystirayaa walaalayaalo aayaddan waxaa dhammaystiraya aayado kale qur-aanka ka mida oo ilaahay uu inoo sheegay subxaana wa tacaala in gaalka xilliga la dhahayo een diintiinaad leedihidiin in ay tahay marka loo digo ilaahay wuxuu dhahay subxaanahu wa tacaala fain kadabuuka faqul lii camalii walakum camalukum antum barii'uuna mima acmal wa ana barii'un mima tacmaluun waxaad dhahdaa rasuulkii allow haddii ay ku beeniyaan bal u fiirso halkaa u fiirsada fain kadabuuka hadday ku beeniyaan waa maxay maxaa ka horraysay de haddii lagu beeniyo waa diintii baad u bandhigtay islaamnimadii baad ugu yaboohday markaasay ku beeniyeen markay ku beeniyeen ee ku adkaysteen markaa waxaad dhahdaa faqul waxaad dhahdaa lii camalii anugu camalkaygan horta leeyahay walakum camalukum idina camalkiinaa leedihidiin antum barii'uuna mima acmal idinku beri baa ka tihidiin waxaan anigu camal falaayo wa ana barii'un mima tacmaluun aniguna sidoo kale beri baan ka ahay waxaad idinkuna falaysaan allahu akbar ma ujeeda aayaddaa kale ayaa inoo caddaysay